Sida aynu ku aragnay qaybihii hore World of Immortals, markabkii qoyska Jiyu ee ku soo jeeday Dragon Island waxaa weeraray Dragon-kii xumaa, kaas oo gebi ahaanba burburiyay markabka. Chowjan ayaa arrintaas oo dhan indhihiisa ku arkay, wuxuuna garwaaqsaday inaysan suurtagal ahayn inuu jasiiradan kaga baxsado dhinaca badda. Dhanka kale, wuxuu dagaal la galay Zhao, wuxuuna saaxiib la noqday daanyeerka weyn ee 4 gacmood leh, kaas oo isaga caawiyay. Si kastaba ha ahaatee, Chowjan wuxuu go'aansaday inuu ka tago saaxiibkiis maadaama joogitaankiisu khatar gelinaysay nolosha daanyeerka. Sidoo kale, unicorn-kii yaraa wuxuu Zhao u doortay inay noqoto saydadiisa, waxaana Zhao la kulantay Amir Ji. Qaybtan cusub waxay ka bilaabanaysaa Chowjan oo taagan meel sare, isagoo eegaya dhammaan jihooyinka si uu ogaado halka uu socdo. Kadib ayuu buurta ka soo degay, wuxuuna galay keynta isagoo leh, aniga Zhao waxaan isla mar nimid Dragon Island. Waxaa laga yaabaa in Lano ay iyaduna ku sugan tahay jasiiradan, laakiin meel ay joogto ma garanayo. Chowjan wuxuu aaminsanaa in Lano ay tahay qofka kaliya ee ka caawin kara inuu helo wadadii gurigiisa ugu noqon lahaa. Intuu keynta dhex marayay, ma uusan ogeyn in koox dad qarsoodi ahay ay si qarsoodi ah ula socdeen dhaqdhaqaaqiisa. Mid ka mid ah raggaas ayaa mindi kor u qaaday si uu u weeraro. Nasiib wanaag, dareenka gaarka ah ee Chowjan ayaa uga digay khatarta. Isla markiiba mindi ayaa ku soo duushay, balse uu ka leexday. 2 mindiyood oo kale ayaa xigay, laakiin wuxuu isaga difaacay awooddiisa gaarka ah. Markaas ayaa weeraryahankii hortiisa yimid, isagoo ku yidhi, xirfadaha runtii waa cajiib, waxaan hubaa inaad tahay Chowjan. Chowjan ayaa markaas si taxaddar leh u weydiiyey, idinku yaad tihiin? Chowjan ayaa raggii ku yidhi, ma waxaad tihiin dad ka tirsan dunida Immortals-ka? Anigu xitaa kama mid ihi dunidan, haddaba maxaad ii weeraraysaan? Aniga iyo idinkana wax colaad ah nagama dhaxayso. Mid ka mid ah ragga ayaa ugu jawaabay, waxaan rabnaa inaan ku dilno weliba amiirkeena dhalinyarada ah dartiis. Adiga ayaanay dhibaato badan ku hayay, sidaa darteed ayuu noo soo diray. Chowjan ayaa weydiiyey, haddii amiirkeena dhalinta yar idin soo diray, marka hore ii sheega waa kuma isaga. Waxaa laga yaabaa inaan la hadlo oon u caddeeyo inaanan wax colaad ah igala dhaxayn, laakiin 3 nin ayaa hareeraha ka soo maray, iyagoo leh, haddaad rabto inaad ogaato cidda uu yahay amiirkeena dhalinta yar, nala dagaalan oo adiga iskaa u ogow. Isla markiiba 3doodii waxay wada bilaabeen weerar, hase yeeshee ma aysan garanayn awoodda iyo xawaaraha Chowjan. Ilbiriqsi gudihiisa ayuu kaga qarsoomay indhahooda, wuxuuna weerar xooggan ku dhuftay mid ka mid ah ragga. Lafo badan ayaana ka jabtay, waxaana ninkii lagu tuuray geed weyn. Ka hor intaysan labada kale falcelin, Chowjan ayaa midkii labaad laad aad u xoog badan ku dhuftay, taasoo hal mar xaaladiisa ka dhigtay mid aad u liidata. Ninkii saddexaad markuu arkay labada saaxiibadiisa ah oo la jebiyey, ayuu isku dayay inuu baxsado, laakiin Chowjan ayaa seeftiisa ku dhuftay dhulka weliba hortiisa, isagoo u digay oo leh, ma baxsan kartid. Markii uu damcay inuu dilo, ninka ayaa cabsi darteed qayliyey, fadlan hay dilin, waan isdhiibayaa, wax walbaan kuu sheegi doonaa ayuu ku qayliyey. Chowjan ayaa yidhi, marka hore ii sheeg, amiirka dhalinta yar ee aad ka hadlaysaan waa kuma? Ninka ayaa ku jawaabay, haddaad ballanqaado inaad nafteeda badbaadinayso, wax walba waan kuu sheegi doonaa. Chowjan ayaa si adag ugu yidhi, hadalka badan iska daa, runta ii sheeg. Markaas ayuu ninkii bilaabay inuu sheego, anigu waxaan ka tirsanahay qoyska Jiyu ee heerka Immortals-ka jooga. Amiirkeena dhalinyarada ah wuxuu yimid jasiiradan si uu u fuliyo hawl muhiim ah. Sheekada ayaa halkaas ka sii soconaysa. Ninkii la qabtay ayaa sii watay hadalkiisa. Amiirkeena dhalinta yar wuxuu la kulmay gabadh aad u qurux badan oo isku sheegtay inay tahay amiirad ka timid Kyushu. Markuu ogaaday inay colaad idinka dhaxayso, wuxuu nagu amray inaan soo qabano nin la yiraahdo Chowjan oo aan u keeno. Ninkii wuxuu sii raaciyey, wax walba kugu dhacay waxaa amar ku bixisay amiiradaas, fadlan nafteeda ii sii daa, anigu waxaan ahay askari caadi ah oo amar la siiyey. Chowjan ayaa markaas garwaaqsaday in gabadhaas ay u badan tahay inay tahay Zhao. Wuxuu naftiisa ku yidhi, gabadhani markasta ay jidkayga soo hor istaagtaa, hadday sidan sii wado, waxay iga hor istaagi doontaa inaan diiradda saaro sidii aan ugu noqon lahaa Kyushu. Dhanka kale, waxaana la geeyey meel la yiraahdo jasiiradda qalbiga, halkaas waxaa joogay Zhao iyo unicorn-keedii. Amir Ji ayaa ku yidhi Zhao, haddaad go'aansatid inaad weligaa halkan ku noolaato, runtii way fiicnaan lahayd. Zhao ayaa ugu jawaabtay, run ahaantii meeshan waa meel aad u degan, hawadeeduna waa nadiif, jawigeeduna waa qurux badan yahay. Haddaad rabto inaad joogto, xor ayaad u tahay. Amiirkii ayaa markaas yidhi, haddii joogitaankaygu ku dhibayo waan bixi karaa. Si kastaba ha ahaatee, adiga ayaa badbaadiyey noloshayda. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo hadiyad yar. Kadib wuxuu soo saaray qasnad qadiimi ah oo qoysaskoodu lahaayeen, taas oo laga sameeyey baalasha shimbir halyey ah oo 1000 sano jirtay.
markuu isku dayay inuu Zhao siiyo hadiyadaas ay weydiisay maxay ka dhigan tahay arrintan. Amiirka ayaa isku dayay inuu u dhowaado taasoo ka xariisiisay unicorn-ka yar. Unicorn-kii si cad ayuu uga xumaaday in amiirku u soo dhowaado sayidadiisa. Amiir Ji ayaa yidhi wax badan ayaad ii qabatay, ma awoodo inaan si dhab ah kuu abaalmariyo, laakiin ugu yaraan waxaan isku dayaa inaan muujiyo mahadnaqayga. Laakiin unicorn-ku ma jeclayn arrintaas. Zhao ayaa ugu dambeyn ku tiri waan fahmay dareenkaaga, laakiin wixii aan kuu sameeyey qof kasta ayaan u samayn lahaa. Wax abaalmarin ah kaagama baahni, adiga ama cid kale toona abaalmarin kama rabi. Waxayna sii raacisay waxaan rajaynayaa in Amiir Ji uu si wanaagsan u fahmi doono hadalkayga. Amiir Ji ayaa hadiyadiisa dib u qaatay wuxuuna ku yidhi Zhao haa waan fahmay hadalkaaga, laakiin fadlan si qaldan ha ii fahmin, wax niyad xumo ah iguma jirto. Waxaan kaliya rabaa inaan ku farxad geliyo maadaama aan arkay murugada wejigaaga ka muuqata. Wuxuu sii raaciyay qofkii nolosheeda badbaadiyay inuu faraxsan yahay, taas ayaa aniga ii ah abaalmarinta ugu weyn. Sidoo kale ninkii ku weeraray ee ku dhaawacay waxaan u diray qaar ka mid ah raggayga inay soo qabtaan, dhowaan ayay halkan keeni doonaan. taasina dhab ahaantii waxay ahayd wixii Zhao rabtay. Kadib Zhao waxay unicorn-kii ku tiri tag oo noo soo qaad miro anaga aan cunno. Markii uu amarkaas maqlay unicorn-kii yaraa ayaa si degdeg ah ugu cararay keenta si uu miro u soo ururiyo. Habeenkii ayaa la gaaray. Xiao Zhan wuxuu taagnaa meel sare oo ka mid ah xarunta ay joogeen Amiir Ji iyo Zhao. Wuxuu si taxaddar leh u eegayay dadka iyo dhaqdhaqaaqa meesha ka socda. Qaar ka mid ah askarta ayaa isdhex marayay iyagoo leh runtii waa yaab. Amiirada Kyushu waxay adeegsatay xeelado aan la garanayn, taasoo sababtay in amiirkeena dhalinteer uu hadal kasto ay dhahdo dhegeysto. Askari kale ayaa yiri waxaan u malaynayaa in amiirkeena uu jeclaaday gabadhaas. Xiao Zhan oo hadalkaas maqlayay ayaa naftiisa ku yiri marka Zhao waxay xiriir wanaagsan la samaysatay dadka deegaanka ee dunida Immortaliska. Tani waxay noqon kartaa khatar weyn oo aniga igu soo socota. Kadib wuxuu si qarsoodi ah ugu sii gudbay gudaha xerada, isagoo adeegsanayay marin biyood qarsoon ay si aan cidina dareemin u dhex galay goobta. Isla waqtigaas waxaa la tusay askari kale oo waardiye ah. Askarigu markiiba wuu diyaargaroobay, wuxuuna soo bixiyay seeftiisa si uu ugu diyaargaroobo weerar, laakiin ma uusan ogeyn cidda weerarka ku soo qaadi doonta iyo halka weerarku ka iman doono. Markii askarigii seeftiisa dib u dhigtay isagoo u malaynaya in khatartu dhammaatay, Xiao Zhan ayaa ka faa'iidaystay fursaddaas, wuxuuna hal jug ku dhuftay askarigii oo isla markiiba dhulka ku dhacay. Xiao Zhan hadda wuxuu watay seef aad u awood badan oo hub ahaan u adeegsanayay. Dhanka kale, taliyihii ciidamada Amiir Ji ayaa la kulmay askari u sheegay inay ugu dambeyn sameeyeen daawo aad u xoog badan, isla markaana la isticmaalay, laakiin lama sheegin qofka loo isticmaalay daawadaas. Taliyihii ayaa amray in arrintaas si degdeg ah loogu sheego amiirka. Kadibna Xiao Zhan isagoo si qarsoodi ah u socda ayuu ugu dambeyn galay qasriga ay ku sugnayd Zhao. Isagoo ka taxadaraya khatar kasta, ayuu seeftiisii soo bixiyay. Markuu dahyadii kala qaaday uu gudaha galay, wuxuu si toos ah ula kulmay Zhao, laakiin wuxuu aad ula yaabay xaaladdeeda, sababtoo ah Zhao aad ay u xanuunsanayd oo u tabardarnayd. Xiao Zhan ma fahmin waxa ku dhacay, balse si degdeg ah ayuu u ogaaday in la siiyey sunta nooc gaar ah oo halis ah. Wax kaloo dareemay urka imanaysa idinka geedaha carfoon lagu shito, laakiin hadda loo isticmaalay geedo halis ah. Sidaa darteed markiiba wuu damiyey. Wuxuu fahmay in waxaas oo dhan si ula kac ah loo qorsheeyey. Markuu Zhao u soo dhawaaday ayuu ku yiri qofka dadka kale dhib u geystaa isaguna mar uun dhib ayuu la kulmi doonaa. Kadib wuxuu kor u qaaday mindidiisii isagoo doonaya inuu dilo Zhao. Hase yeeshee intaanu tallaabadaas qaadin, askar badan ayaa qaylinaya oo goobta ku soo yaacay. Xiao Zhan wuxuu isku dayay inuu weeraro, laakiin Amiir Ji ayaa adeegsaday awooddiisa si uu Zhao u badbaadiyo. Kadib amiirku wuxuu ku qayliyey maxaad ku sameynaysay amiiradayda? Isla waqtigaasna Zhao ayaa indhaha kala furtay, inkastoo xaaladdeedu weli aad u liidatay. Markay indhaha furtay oo ay horteeda ku aragtay Xiao Zhan, aad bay ula yaabtay. Dhanka kale, Amiir Ji ayaa hadda ogaaday in ninkaasi yahay Xiao Zhan. Isagoo doonaya inuu dabin u dhigo ayuu yiri ma garanayo waxaad ku samaysay amiiradeena, balse xaaladdeeda hadda aad bay u xun tahay. Xiao Zhan ayaa ku jawaabay anigu hadda ayaan meesha imid, haddii aan doonayo inaan dilo maxaan waxyaalahan oo dhan ugu mashquuli lahaa, hal mar ayaan madaxa ku goyn lahaa. Hadalkiisa ayaa ka haraysiiyey taliyihii ciidamada, wuxuuna ku qayliyey sidee baad ugu dhiirataa inaad sidaas u hadasho? Isla markiiba taliyihii wuxuu ku weeraray seeftiisa, isagoo ku soo qaaday weerar dab ah oo xoog badan. Si uu isaga difaaco, Xiao Zhan wuxuu adeegsaday qaab difaac ruuxi ah, balse weerarkii ayaa jebiyey difaacaas, wuxuuna Xiao Zhan ku tuuray meel fog. Dhanka kale, Zhao iyaduna si caro leh ay u istaagtay iyadoo seefteeda kor u qaaday, laakiin caafimaadkeedu aad ayuu u xumaa, xitaa si fiican uma socon karin. Madaxeeda ayaa xanuunayay,
jirkeeduna aad ayuu u daciifay. Markaas ay rumaysatay in wixii ku dhacay uu ka dambeeyo Xiao Zhan, isla markaana ay yihiin qorshayaashiisa. Amir Ji ayaa mar kale yiri, amiiradeyda ha welwelin, goobtan waxaa buuxa ciidamadeena, ninkan isagoo nool halkan kama baxsan doono. Markuu sidaa yiri ay gacanta saaray Zhao, balse Zhao markii si xanaaq leh u eegtay, markiiba gacantiisa ayuu dib uga qaaday. Kadib Zhao, iyadoo weli tabar daran oo si dhib leh u socota, ay bilowday inay u dhaqaaqdo dhinaca Xiao Zhan iyadoo doonaysa inay isaga disho. Markii amiirka dhalinta yar doonayay inuu halkaas ka dhaqaaqo, taliyihii ayaa joojiyay isagoo ku yiri, fadlan hadda ha bixin. Kahor inta aynan iman jasiiradda Daraagoonka, madaxa qoyskeenu wuxuu siiyey amar cad oo ah inaan faragelin khilaafaadka dadka leh xaalad kasta ha noqotee. Hadafka noogu muhiimsan waa inaan helno ukunta boqorka Daraagoonka. Marka aan ku guuleysano hawshaas, waa inaan si degdeg ah uga baxnaa jasiiraddan. Laakiin amiirka dhalinta yar wuxuu ku jawaabay, aniga hadda waxa igu muhiimsan waa inaan qabto gabadhan. Isagoo sidaas leh ayuu si degdeg ah uga baxay goobta. Isla markaasna waxaa la tusayaa xasuus yar oo ku saabsan taliyaha. Hore ayuu u ogaa in Xiao Zhan uu dhawaan iman doono meeshaas, sidaa darteed si ula kac ah ayuu ugu amray mid ka mid ah raggiisa inuu qolka Zhao dhigo qoryo sun ah oo khatar ah, kadibna uu ku shido qolka ay jiifto. Taliyuhu wuxuu niyadda ka lahaa, hal talaabo ayaan ku dilayaa 2 shimbirood, Zhao way dhiman doontaa. Dabadeedna amiirku isagoo xanaaqsan ayuu dili doonaa Xiao Zhan. Markaas ayuu mar kale si buuxda diiradda u saari doonaa hawshiisa ah raadinta ukunta boqorka Daraagoonka. Halkaas ay qisadu ku joogsanaysaa, waxaana qaybta xigta ee 8aad lagu soo bandhigi doonaa waxa xiga ee dhacaya. Asxaabta sharafta badan, like inoo saara muuqaalka si aan u soo badano taxanayaashan oo kale. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsan tahay daawashadaada.